qolobkii garoonkii ilaa geesiga kulanka waxaynu ka hadlaynaa habeen taariikhda waxa ay warisay aysan dib u warin waa 1998 semifinalkii Croatia iyo Faransiiska ciyaaryahanka lagu magacaabo Lilian Thuram ayaa qaybtii labaad ee kulanka bilowgeeda qalad galay waxayna noqotay in Faransiiska lagu ciqaabo oo goolkaasi laga dhaliyo dhammaan waa la wada canaantay xidigan maadaama qaladkan uu galay laakiin hal daqiiqo kadib waxa uu ansixiyay goolka barbaraha oo ka dhigay goolkii koowaad ee Faransiiska ma jirto wax dabaaldega maadaama qaladkiisa oo kaliya uu saxay laakiin ma aaminaysa 70 daqiiqo Lilian Thuram waxa uu ansixiyay goolkii labaad ee ciyaarta taa oo ka dhigtay 2 gool iyo gool oo ay Faransiiska ku adkaadeen maxaa ku jira meesha ayaad leedahay waxaan ku leeyahay saaxiib Lilian Thuram waayihiisa kubadda cagta intuu u ciyaarayay qaranka Faransiiska waxa uu ansixiyay 2 gool oo kaliya inta uu matalayay Faransiiska oo dhan waxa uu dhaliyay 2 gool oo kaliya habeenkaas ayuu dhaliyay labadiisii gool ee ugu horeysay dunida ee uu dhaliyay qarankiisa waxay ka dhigan tahay saaxiib qorshaha aad leedahay waxa ka weyn qadarta rabbi ee sidii ay tahay ku qaabil waxa laga yaabaa in dib lagu dhigayo oo maalmaha kamid ah ay ku sacbin doonaan dhammaan daawadayaasha iyo taageerayaasha oo aad doonaysid xilligan inay ku sacbiyaan waxa laga yaabaa maalin in kaliya dib lagu dhigayo si aad u qaadatid abaalmarin ka sareysa abaalmarinta aad maanta rabtid qorshuhu waxa ka weyn qadarta rabbi ee sidaas ku qaabil saaxiib maalinta ay ku timaado adigoo qorshe la'aan haysan ku imaan hadda isa sii diyaari oo qorshe sii yeelo waxna dhici doonto maalin lagu wada sacbin doono Lilian Thuram labadaas gool oo ansixiyay waxay keentay in finaalka ay aastaan Faransiiska dabadeedna Brazil ay ka qaadaan waad hubtaa oo waad maqashay baan u maleynaya maalintaas iska